السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا wanaagsan idil ahaantiinba waxaanu ku suganahay buurta dalxiiska quruxda badan ee gacan libaax oo ku jirta jawiyadeedii ugu quruxda badnaa inkastoo aan ku arkay jawi aan hore ugu arag oo ah jawi kulul maadaama ahaant jirtay buur aad u qabow doorkan waa kulaylkii laga dareemay Hargeysa iyo magaalooyin kale wuxuu ka jiraa ilaa buurta gacan libaax oo maanta kulayl ayaa sawirada la geli kari waayay markaa imika waxa soo dhamasay dalxiiskii buurta xagga sare waxaan taaganahay imika laaga ugu dheer ee buurta oo dhowr kun oo feet ka sareeya jooga badda amba de magaalooyinka kaleba oo imika saad arkaysaanba halkan waa laagii barta hadii aad dhaafto waxa laga yaabaa inaad ka dhacdo waxaan isku dayaa inaan ku yar dhawaado anigoo naftana biimeynayn adiga kamaraduna hay igu soo dhicina imika waxaan taaganahay halkii ugu dambeysay waa laga yaabaa inaan yar raxnaxo waxaan dhaaslaan yari looba markaan ku dhawaado halkan imika saacad kadib waxa laga yaabaa in iyaduna timaado ya inantii ma halka hoose hada inan iyo waa salaamaya ma dhagax ma ku tuuraa waayo waxaan ku yidhi sanad hore oon imid buurtan markaan kabaradii saa ula soo baxay aan wax duubis ilaa halkan meelahan istaagay ay bahal ceeryaan soo yaacday halka iyadoo soo yaacay ceeryaantii ayaan sidhi ka gaarsiyo anoon hal second duunba ceeryaantii halkan timid dabeedoon ka yaacno sawirkii wuxuu noqday macnaha sawir aan ku soo galay meeshii aad lahayd ku soo gashay top 5 sawir aad ku soo gashay halkaasina iyadoo sponsor ha noqotay marka waxa la ku soo dhawaada buurta gacan libaax oo ya wargo weyn la igu xidhino si ay xisay marka dhicmayna shaale marka maanta kulaylka ayaa ka jira buurtii gacan libaax oo imika jawigu soo qaboobanayo ceeryaantaba soo socota waxaan tagaynaa imika godka jilaco maxay ahayd meeshii godkii libaaxyada godkii libaax oo geli jiraan imika tagi doona haddii la ka dhigo waxaan ka nimid meeshii qadada ya oo godkii libaaxaniyo mayo godka libaax ma dhacaya haddaan naxayo waa naaxilaaniyo haddaan naxayo waa naaxilaa markaa dhammaantiin waxaad nagula dalxiisan doontaan muuqaalada kuwa qurux badan iyo kuwa fool xun isugu jira aynu ka duubnay buurta dhakadeeda iyo hoosteedaba xaggaa hoosena inaan insha Allah ka soo duubnaan isku dayna waa hagaag buurtani waxa ka mid tahay amba magacyadii ugu badnaa ee baraha bulshada lagu qoray amba loogu hadalhaynta badnaa ee sanadkii 2023 ay odhan kara oo markay rabshaday wax ka dhacay waxay noqotay buurtii magaceeda amba magacyadii ugu badnaa ee lagu qoray Facebook iyo wixii la xiriira marka waxay ku jirtaa in buurta ku noqdo jawi iska jiiraala oo roob badan ma helin laakiin waa iska cagaaran tahay oo geedka xayramadka oo iminka halkan aad ugu badan saad arkasaan ayaa aad ugu badan dusheeda waxyaalaha ku cusub waxa kamid ah waxa laga sameeyay maqaaxi iyo meel wax laga cuno oo aan berigii hore ayna lahayn oo iyo guriye iyo meel lagu faakahaysto waqtina lagu qaato ay buurta dhakeedu leedahay soo daawanay soo dhaafnay ay leedahay buurtu marka waa meel kamid ah goobaha ugu dalxiiska quruxda badan inkastoo ayna helin wadadii loo mari lahaa iyo macnaha dayactirkii ay u qalantay inkastoo la siinin haddana waxay ka tahay imika meelaha la ilaaliyay ee xafidan ee iska leedahay Somaliland oo ay kamid tahay buurtan iyo buurta daalo oo kale waa meel ayna wali ku oolin meel lamid ah inta hadaan ku yar noqdo jawiga baan ahayn jawigii ayna buurta gacan libaax uga baranay oo jawigan ay ku jirtaa inkastoo imika saacadan aan joognaba uu soo yar qaboobanayo oo arkaysan sida aad laga moodan ceeryan soo socoto laakiin intii hore aan joognay waxay ahayd kulayl iyo huur badan baa ka jira marka insha Allah marka roobka helo soo way ka sii qurux badnaan doontaa dalxiiskeeduna marba ka dambaysa uu sii badanaya buurta gacan libaax oo imika intaasoo boqol qof xaggan sawir ku galisa oo wax iskaga duubasa dusha way ka buuxeen kolka waliba xilliga gugana waa uu ka sii badan karaa de buuraheena kale waxa ku fiican tahay in laga faa'iideysto oo laba xarig la isugu xiro dalxiiska kale la sii hormariyo oo wadooyin loo sameeyo buurta dul mara oo macnaha isu socodka fududeeya oo kale loo sameeyay godkii baan insha Allah tagi doonaa saan sheegnay hadii noo suura gasho inuu garanno inkastoo mid garanayaaba inuu la socono aan yar asqownay buurta kale la soo galo waa la asqoba marka dhamaantiin ku soo dhawaada buurta gacan libaax halkan waxaan kula kulmay mid kamid ah dalxiisayaasha waa Axmed Barkad Mr. Xato ku soo dhawo kanaalka Khadar Omar ka waran jawiga iyo maanta buurta gacan libaax horta ugu horeyn waa ku dhawahay channel-kaaga Khadar Omar sidaad arkaysaan jawigu waa very nice good
bartankii waxaad ku sugantahay buurta gacan libaax haa bartankii waxaan ku suganahay buurta gacan libaax hadal ma karaysa dee waxaan leenahay kaaleena la dalxiisa idinkuna let's go soo gala raggii waad aragtaa waa kuwa qaday ku yaacayaan rag weligood maalin qaday baa maaliida soo socdaan soo dhawaada mar kale waxaa idinka yar sheekeynayaa buurta dhakeeda walow aynu mar dhow geli doono godkii madoobaa ee buurta gacan libaax ay caanka ku ahayd laakiin markan kusoo yar dhawaada halkani waa halkaanu ku qadayn doono wax yar kadib waana dhulka siman ee buurta dhakadeeda ee jawiga quruxda badan leh ee cagaaran eed aragteen halkana waa boodhka ay ku qoran tahay kusoo dhow gacan libaax iyo biraha dhaadheer iyaguna iminka caanku ah dadku inay soo egtaan waa hagaag saaxiibayaal waxaynu ku dhex jirnay buurta gacan libaax markaa iminka bal waxaynu gelaynaa god ka mida godadka ugu mucjisada badan ee buurtan gacan libaax waa god aan cidi qodin ee iska mucjisa ilaahay qodaya waa god ay ku dhuwan jireen dad badan oo ka mid ah dadkii jabhado kale godka ay geli jireen sida jabhadii SNM kolka oo la sheegay inay godkan in badan ku jireen markaa bal godkaynu gelanaa raggii nala socdo dhan way galeen gudahay ku maqan yihiin waad arkaysaano wax shanqari ma baxaso rag gudaha wada galeen bal inkastuu madow yahay horta ilaa halka horeyn kamarada bar sii gaarnaa soo socda وإننا قد كي كده سو قلني وأنا كان دربيديس وصلح إلهي قضي حقنا ومدو حقنا إمكا رجع برتني كتيران تذكره واحد يسكت دينا بيننا قلنا واحد شنقري يمكن ما تشرتو وعبس ما يشن مرة تشرتو مركا قد كي نمخرص عننا وأنا كان أصحابي واحد نقول حكينا إمكا قد كي معجزان قدها سو قلنا قدكو أنت أصلا متربو حاجة سرو قدين وأنا كان إمكا حقنا نصوم سيمر دوناتور شان سنة ومدو وعبس عادي أنا شيء أصحابتي وأنا قطر ارتي مركا أنا وأنا مقارس كذا على إن شاء الله إلهي أنا نبت بحية إنكسر بورتا كل حكوا بالنبا ونكو قبوا النبا قال قايم هو نكو يرقبوا نودي كذا ورجع بحي قلت كام سي إن يربان يرتصي دونا حق هو مدو صاير صعو إن يربان تصيا قلت كوكا هالقاسم مخمرنا إن شاء الله سدائي نبت قليو يطاو شوعا waxaa xusid mudan saaxiibayaal rag waa kii jabkiisa ka sheekeeyay in aanu godka weynay oo aanu saacad iyo in ka badan deedeynay oo aanu halkan ku dhex meereysananay oo anagoo quus joogna oo weynay maadaama buurtu isu wada eeg tahay uu nin rijaal oo buurta ku dhashay aayarna tusay uuna geeyey godka halkanina waa halkan ku qadaynay si aan idiin sheegay oo bariiskaasoo lanoo kariyey oo maqaaxiyaha lanagu kariyey aanu ku cunnay maadaama buurtu leedahay meel maqaaxiya oo wax lagu karsado oo buurta dhakadeeda iyo guriyo dawladdu leedahay bay ku yaalaan oo iminka buurta horumar yari ka muuqdo birahaasina aynu soo dhaafnay waa biraha Somaliya tala Soomaaliya buurta caan ku tahay